السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada laga barto cilmiga tiknoolajiyadda ee loo yaqaan Tashmaal. Waa niyo Amiin Cabdiya. Haddii alla idmo waxaan qaadan doonaa kooraskeen halka baro tiknoolajiyadda casharkiisii saddexaad oo 1.3 oo saddex cutub u kala qaybinay. cutubkiisii koowaadna aan ku jirno casharkiisii saddexaad. ugu horaantii maanta waxaan qaadan doonaa haddii alla idmo laba mowduuc oo ah horta ciwaanka guud ee uu leeyahay casharkeena waxa weeyaan qaybaha uu computer ka kooban yahay iyo shaqadooda. inta badanna waxa aan ku qaadan doonaa haddii aan la idmo laba qaybood oo uu ka kooban yahay inta badan computerku oo kala yihiin in uu yahay wax devices ama component agabyo output ah iyo kuwa input ah. waa maxay output iyo input? waxa weeyaan computerku marka uu isagu dhameystiran yahay waxa uu leeyahay qaybo kala duwan oo ay kamid tahay inputkiisa. haddii aan tilmaamo waxa la gelinayay ee macnaha isagu una la-aantii shaqeyn karayn ee uu u baahan yahay hardware ama wax macnaha physical ah sida loo yaqaano keyboardka oo kale. without keyboard computerku desktopku ma shaqeyn karo, without mouse ma shaqeyn karo. scannerkan sometimes waa loo baahan yahay laakiin sometimes isigiisa ma shaqeyn karo oo waayo wixii haadha sawir aad ku hayso haadh ahaan saad u gelin kartaa computerkii isagoona scannerka helin ma gelin karaysid. CPU oo kale waa la mid oo isagii la-aantii ma shaqeynay. maskaxdii dhanna hadday ka maqan tahayba kama shaqeynay. web camaradii oo sidoo kale kadaalika waa la mid hard diskii wixii saas oo kale componentyadii la gelinayay ee isaga la-aantii unu shaqeynay computerkii oo computer dhammaystiran noqonayn ayaa waxaa loo yaqaanaa input. outputna waxa weeyaan wixii computerkii kasoo saaraya haddii noqoto sawir, hadday noqoto speakers, hadday noqoto macnaha waraaq ama si haadha wax usoo saaraya wax macnaha wixii computer ku dhex jiray ka dhigay wax la arki karo, la maqli karo, lana taaban karo. sidoo kale inta badanna waxa outputka loo yaqaano waxa weeyaan oo way badan yihiin. qaar labadoodaba soo wada dhex gala ayaa jira, qaar waxaa jira baalkii soo sheegsa gamingki iyo waxaa marka la isticmaalayo labadoodaba soo gala outputka iyo inputka. laakiin waxaan ka qadan doonaa outputkana saddexdan oo loo yaqaano monitor oo muraayadii hore ee sawirka humaaga kuu soo saaraysa sawirka dhan ee computerku meesha tagaysid iyada la-aanteedna aanad shaqeyn karayn waayo meesha tagaysid haddaanad garanayn oo aanad arkaynba meesha taabanayso maxaabad ku shaqeyn maayo. waxaa kaloo isagana muhiim ah printerkii oo isagana markaad waraaqadii soo saaranayso ama wixii sawir ah ee computer ku jira aad hard ka dhiganayso ama wax physical oo la taaban karo isagiisi loo baahan yahay oo printeradu way kala duwan yihiin. insha Allah waan qaadan doonaa. waxaa kaloo jira speakers oo ah sameecadihii kii codka kasoo saarayay kuwaasina waa muhiim. kuwan inputka oo kale waxaa soo galay iyaguna microphonekii oo kii codka gelinaya. okay, casharkan iska guda galno. waxaan ku horeyn doonaa inputka iyo intan uu ka kooban yahay mid u qaadan doonaa. inta badan keyboardku waa device ama aalad yar ama agab yar oo aad ku qorayso xarfihii ama ereyadii aad rabtay inaad ku qorto cashar ama qoraal ama searching ama aad wax ku baaran lahayd. inta badanna keyboardyadu waa design kaliya ay leeyihiin oo haddii aan kusoo qaadano designka kale inta badan lama isticmaalo. waxaa kamid ah designkaas waa designkan aad arkaysiin. designkanna inta badan waa dhif designkani oo lama helo inta badan laakiin waxaa inta badan caana kan ayaa caana inta badan oo sorry sawirka waa uu yar yahay. keyboardka ayaa caana inta badan la isticmaalaa oo loo isticmaalaa inta badan aan computerada wayna kala duwan yihiin keyboardada. keyboardadu computerka ama agabyada computerka qaar waxaa jira wadin arkay keyboardadan qaar waxaa jira kan oo kale gamingka loogu talagalay oo desktop ayaa loogu talagalay. qaar laptop ku samaysan ayaa jira. qaar waxaa jira screen keyboard la yiraahdo oo computerka ku seefreysan oo kan oo kale adiga arkay on screen keyboard la yiraahdo uu soo baxay. adiga arkay kan oo kale waa screenka uu computerku iska leeyahay oo sometimes haddii uu keyboardku ka fadhiisto ama ku shaqeynayn
aad kan iska isticmaali karayso oonad ka maarmi kartaa. waana mid ay Windows 10 iyo Windowska kaleba lagu soo base gareeyay, waayo waxaa dhacda laptopyada iyo kombiyuutarada keyboardyadooda sometimes qaar baan shaqeyn xarfaha sida R oo kale ku shaqeyn kari mayso oo adoo taabanaya haddana soo qormi sala ashligeed saad macnaha aanad keyboard kale u galgelin oo macnaha aanad lacag badan kaaga sii bixin furfuritaankiisa ayaa waxaa loogu talagalay in aad isticmaasho mid screen ah. waanad ka bedelan kartaa keyboardka ay nooc ayaad gashan kartaa computerkaaga oo uu iskaliya. waxaa ku xiga oo kale isagana aan qaadan doono haddii aan leedmo mouse-ka waa taqaaniin waa kan aan imikada hadda aan ka controlino computerka inkastoo aan isticmaalayno laptop, laakiin haddana desktopka isaga la-aantii ma shaqeeyo. waayo keyboardka oo kale waad ka maarmi kartaa oo kan screenka ayaad soo saaran kartaa, laakiin inta badan keyboardku sometimes lagama maarmo oo way kala duwan yihiin keyboardada computerku. waxaa kamid ah keyboardka computerka midkan oo kale ayaa kamid ah. waxaa kaloo kamid ah kuwa bila wireless. waxaa kaloo kamid ah mid xarig lahayn oo wireless-na ahayn oo wireless aan isticmaalin laakiin xarig lahayn. USB-ga baad gelinaysaa computerka waad iska isticmaalaysaa meel walba aad ka joogto adigoona ka fogaanin, oo kaasina uu leeyahay wireless isaga u qaas oo connection ku sameynaya isaga iyo madaxa keyboardka. waxaa kaloo qaadanaynaa scanner oo scannerku ah kan markaad xaar ku hayso sawirkii ama software aad isagana loo baahan yahay inaad macnaha markaad computerka inaad geliso rabto sawirkii adoo xaar ku haya ama waraaq oo kale markaad geliso scannerka ayaa la saaraa waana la isticmaalaa inta badan markaad passport aad dirayso oo kale iyo ayaa la isticmaalaa amba shahaadadaada ayaa la isticmaalaa. waxaa kaloo jira webcameradu waxa weeye kamarada hore ee computerka ku xidha ee Skype iyo Facebook video calling-ka aad u isticmaasho oo inta badan inaguna naqaano. laptop-yadana way ku base garaysantaa oo lagu soo sameeyaa, laakiin desktop-yada iyagu gaar ah ayay wataan wayna kala duwan yihiin. waa adiga arkay qaar waxaa jira wireless, qaar waxaa jira sometimes aad u isticmaali karto xarig. mouse-kana waxaan idinka ilaa mouse-ka waxaa jira qaar mobilkaaga smartphone-ka android-ka aad ku isticmaali karto oo mouse aad ka dhigan karto mobilkaaga android-ka ah ama smartphone-ka screen touch-ka. waxaan geli doonaa haddii aan leedmo isagana inkastoo kasoo boodnay CPU-ga oo ah Central Processing Unit-kii oo isaga aan casharkii hore kusoo qaadanay. casharka hore ayaad ka helaysaa soo shaqeeyana waxa weeyaan waa maskaxda dhan ee computerku oo haddii aan su-aal ku weydiiyo adiga ahaan dhageysanayaan bay daawanaya casharka daawanaya sheeg haddaan ku idhaa maxay maskaxdaada kuu qabataa markii waad garanaysaa waxay kuu qabataa waa ta kuu controlsha waxaad walba ood qaban karto salaajriga computerkuna waa isaga. waa maxay monitor waxa weeyaan waa muraayada dhan ee computerkaaga aad kala socon karto wixii aad ka qabanayso waxaad ka daawan karto fiidiyoyada casharaanta aad ka akhrisan karto. monitoriskana laptop-yada qaar baa ku yimaada qaarna waxay ku yimaadaan inta badan waxa laptop waa lagu soo dhisaa oo lagu soo base gareeyaa. printerkuna waa mid isagana wixii aad computerka ugu jira hardhaan aad kusoo saaranayso oo isagana inta badan la isticmaalo oo printer baa la yidhaha waa la iska wada yaqaanaa waana cad. speakersku waa mid isagana inta badan la isticmaalo oo lagu xiro computerka si uu codka uga soo saaro oo aad u dhageysato. speakerskuna way kala duwan yihiin qaar sameecada ah ayaa jira oo computerka ku xiran karto adigoo isticmaalaya xadhigooda. mid kale ayaa jira oo microphone ama headphone loo yaqaano. headphone-ku inta badan waa mid kan dhagaha la gashado oo inta badan la isticmaalo qaar way kala duwan yihiin. inta badan 2016 lasoo saaray waa lacag qaaliya ilaa 100 ayaad siisan kartaa, laakiin inta badan kuwa dalka Soomaaliya available ka ah ka ugu badan wuxuu noqon doonaa haddii aan leeyahay $10. qaar waxaa jira bilaa xariga kuwa bilaa xariga oo kale waa lacag qaaliya inta badan loo isticmaalo bilaa xariga, laakiin inta badan kan xariga ayaa qiimo jaban. intaasaan maanta casharka ku joojin doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ha ilaawin inaad like tirahdid videoga aad sii share garayso subscribe-na aad tirahdo channelkan ku leenahay YouTube waanad mahadsantahay. wixii su'aalaha xagga commentiga ee YouTube noo soo dhig waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.